البر حتى تنفقوا مما تحبون wanaag ma gaaraysaan ilaa wixii aad jeceshiin aad ka bixisaan marka dadkaas walaalihiina ah waxay u baahan yihiin daryeelkaasna ma aha daryeel oo maaragta mar iyo maaragta laba ah waxay u baahan yihiin in la gacan qabto meesha uu maaragta ka calaalay kan indhaha qabo oo meeshii maaragta dhib hadduu ku arko uu maaragta kasii baxayo meel kale sii aadayo kan noocaasa markuu calaalay kan kale maxaa u malaynaysaa marka ikhwaani dadka aad iyo aad ay u dhibaataysan yihiin khaasatan dadka noocaan ah marka waxaan maaragta idinka codsanaynaa jamciyada salaam alkhayri iyo jamciyada annahrayn horta marka hore waxaan u mahad celinaynaa jamciyada assalaam alkhayri waxyaabaha ayna soo gaarsiisay aad iyo aad ayaan maaragta ugu mahadinaynaa runtii waxaa la maaragta laga yaabaa inaan xataa dadka waxay ku ciidaystaan xataa aan fara ku hay jamciyada marka assalaam alkhayri waxaan maaragta u mahad celinaynaa sida maaragta ay ugu soo wareejisay dadkaas walaalahooda midda kale jamciyada annahrayn ayadana runtii waxay ku bixisay juhdi dheer ay ku bixisay sida dadkaas loo soo maaragta guryahooda loogu keeni lahaa xataa waxaa laga yaabaa inay dad maaragta ayada maaragta jamciyada ka mid ah inay dad soo kaxeeyeen si ay maaragta dadkaas walaalahooda ah maalintaas ciida ah ay ayagana maaragta farxad iyo raanrayn ay ugu maaragta ay dadka ugu maaragta dhex joogaan marka ayagana waxaan ku mahadinaynaa isu keenidii dadkaas ay isu keeneen ayaan maaragta ugu mahadinaynaa in ilaahi subxaanahu watacaala ka ajarsiiyo dadkii maaragta jamciyada salaamna ayadana soo dhiibitaankii ay noo soo dhiibtay waxaan ugu mahadinaynaa ilaahi subxaanahu watacaala waxaan leenahay ha ugu bedelo maaragta khayr fara badan marka waxaan codsanaynaa haddaan marka aan nahay dadka maaragta noocaasa oo maaragta indhaala waxaan codsanaynaa waxay maaragta maadaama maaragta ciriiriga uu jiro Soomaaliya aan maaragta war sheegitaan aan u baahnayn oo la wada og yahay waxaan ka codsanaynaa inay maaragta mar kastaba ay maaragta iloobin ay maaragta mar kastaba niyadooda ay maaragta nagu jirto ilaahayna waxaan u weydiinaynaa in waxa ay bixiyeen wax ka badan maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وحال مارتا بحسي أو مارتا شيء مجر إله سبحانه وتعالى هداد بحسه وأقول لابا إله سبحانه وتعالى سيري يريد أنه إذن إله سبحانه وتعالى وحي أي بحيان واحتبل الإله سيو هذا وحال مارتا إله سبحانه وتعالى أمبرينا إنه مارتا أيقنا وكذلك مارتا دد ونكسن أو إله سبحانه وتعالى بنتي سيدتك نوعا سمارتا وقفتا هذا مارتا أين إلا من ذلك ولا له هذا نوع عسى ومرحلة هذا نوع عسى هاي وطن هذا نوع عسى وياي مرت إن شاء الله تعالى وحن لنا هاي مرت أن كنت عسينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات أجب دعوتنا وفرج كربنا يا كريم اللهم وضع أمورنا خيارنا ولا توضع أمورنا شرارنا اللهم أحينا مسلمين وتوفنا موحدين واحشرنا في زمرة الصالحين اللهم من أراد اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا واستجب لنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إن شاء الله تعالى ولا لهم إن شاء الله تعالى دعاء إله سبحانه وتعالى وأقبله بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين عامة. ونختتم البرنامج بآيات من ذكر الله الحكيم يقرأها لنا أحد المعلمين وهو طاهر حاجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم.